gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay wadada isku xirta isgoosyada korontadii xoosha degmooyinka Dharkiinley iyo Wadajir. Wadadan oo ka bilaabata socdaalkeeda isgooska korontada isla markaana gaaraysa isgooska xoosh ayaa inta u dhaxaysa waxa ka muuqda burbur xoogan. Dadka isticmaalaya wadadan ayaa dhibaatooyin badan kala kulmi jireen marka ay marayaan burburka ka muuqda awgiisa. madasha dhagaxdhiga waxaa ku sugnaa gudoomiyaasha degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley qaybaha kala duwan ee bulshada labada degmo. ugu horreyn waxaa halkaasi si wadajir uga hadlay gudoomiyaha degmada Wadajir Bashiir Maxamed Cali iyo gudoomiyaha degmada Dharkiinley Guhaad Sheekh Xasan. gudoomiye ku dhax dhigtay wadadii jaalasiyaad oo runtii muddo fara badan aan sugaynay maanta inaan noo dhagax dhigto. waxa maanta Allah subhanahu wa ta'ala qadaray inaan maanta dhagax dhigto. insha Allah waxaan rajaynaynaa anagana inaan maaragtahay aan hagaaji doono wadada hadii insha Allah noola hagaajiyo wadadan ay noo dhisanto. waxaan rajaynayaa shacabka reer Wadajir inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha wadadan quruxda badan la rajaynayo oo maamulka gobolka Banaadir ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka oo maaragtahay garab weyn naga sii doono. mudane gudoomiye runtii waxa maanta ay qorayaan reer Madiino taariikh maadaama wadadan oo ah wada halbowle ah oo muhiim ah oo bulshada reer Madiino aad isku weydiinayeen maanta aad ku dhiiratay inaad dhagax dhigto ka Dharkiinley ahaan waxa anagana dhaxda u xiran doonaa oo waajib iska saari doonaa in laamigan sidii uu dhismi lahay aan ka shaqeeyno anagoo kaashanayna bulshadeena qaybadeeda kala duwan ee ganacsato noqon lahayd ee culimo noqon lahayd hadii ay noqon lahayd dadka deegaanka. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo dhankiisa warbaahinta la hadlay dhagaxdhiga kadib ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu mar walba diyaar u yahay sidii uu dhisi lahaa dhammaan wadooyinka burbursan. shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ayuu ugu baaqay in mar walba ay diyaar u noqdaan sidii ay u ilaalin lahaayeen wadooyinka dhismaha lagu sameeyo. wadada maantay Allah mahadiis ay noo suura gashay in markii ugu horeysay aan dhagax dhigno wadada waa la dhisayaa insha Allah ta'ala waxaan noo bilaabanayaa dhismaha wadada dhismaha waxa iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley degmada Kaxda ayaa iyaduna dhismaha wadooyinka qayb ka ah oo aan rajaynayno mar dhaweynaan ayadana dhagax dhigi doono wada kale oo laami ah oo Kaxda ka soo bilaabanaysa ilaa xoosh imaanaysa. inta marka la dhamaystiro ayaan u gudbin doonaa hadii aan leedmo xoosh iyo ex control dhismahooda. mas'uuliyadda waxa ay naga saaran tahay dhammaan wadooyinka ku yaala gobolka Banaadir tii hore u ahayd wada laami ah burburtay iyo midii loo arko inaan looga maarmin laami intaba dhismahooda waan dhisaynaa hadii aan leedmo bil gudaheed ayaan dhagax dhignay 3 wado oo laami ah sidaas ayay u socon doonaan hadii Rabbi idmo. bulshada loo dhiso laamiga inay doorkooda ka qaataan bilicda magaalada oo wadadii la dhisay oo malaayiinta dollar lagu dhisay ayaan u ogolaanin inay dib u dayacanto oo aan qashin la isaga soo shubin. waxaan aragnaa mararka qaarkood jawaano qashin laga soo buuxiyay iyo qashin siyaabo kale loo keenayba in wadada lagu soo qobo biyo wasaq lagu qobo yani aan mas'uuliyad gaar ah iyo xil gaar ah la iska saarin wadooyinka bilicdooda. wadooyinku waa hantida kaliya ay idinka dhaxaysay kamid yihiin. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.